السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalay maanta oo sabti ah taariikhduna ay tahay 16 December sanadka 2023. barnaamijkan waa kii labaad waana barnaamijkii habeenimo waa barnaamijka aynu ku falanqeyno dhammaan waxyaabihii ugu waaweynaa ee caawa ilaa maanta dhacay iyadoo barnaamijkan kii ka horeeyay aad ka heli kartaan isagana macluumaad aad u xiiso badan. haddaba dhowr qodob oo muhiim ah ayaan barnaamijka ku faaqidi doonaa. marka ugu horeysa Israa'iil oo markii ugu horeysay sheegtay mar kale waaya tiradii ugu badnayd ee dhaawaca 24 saacadood. barnaamijkan kii ka horeeyay waxaanu ku soo qaadanay tiradii ugu badnayd 20 askari mar inay sheegaan. hadda maxaa la maraa 35 askari oo qaar dhaawacoodu halis yahay inay sheegeen maanta 24 saac ee lasoo dhaafay Gaza in lagu soo qararamsaday. haddaba tafaasiil ku saabsan sheekadaas waan idin hayaa. sheekada kale ugu xiisaha badan barnaamijka waxay tahay macalinka weyn iyo xertiisa oo raba waan inay la galaan Xuutiyiinta. dowlad Carbeed oo khaliijka ah ayaa loo soo maray markii waxba laga tari waayay Xuuti. hadda farsamo kale ha lagu dayaaliyay. haddaba siday wax u socdaan iyo Xuutiga cidda loo soo maray iyo waxa la rabo in lagala heshiiyo wixii oo dhan xogtiyaan idin soo ogaaday aan idin hayaa. waxa soo kale aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa markii ay isaga baxeen ciidamada Israa'iil isbitaalka la yiraahdo Kamal ayaa waxaa la sheegay inay kaga tageen halka dhibaato ay ku tilmaameen shaqaalaha isbitaalka jariimo ama dambi bani aadanimada laga galay. dad dhaawac ah in ka tarabiilo la dulmarsiiyay kadibna iyagoo nool isbitaalka lagu xabaalay. sheekada iyadana waan idin hayaa. qariidadii ayaan idin hayaa caawa iyo waliba warbixino kale. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. kula wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii habeenimo maanta oo sabti ah. qodobada muhiimka ah way noo soo socdaan balse marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu daabacay warbixin uu kaga hadlayo arrimaha ku saabsan telefishinka Al Jazeera oo dacwad gudbinaya. shabakada Al Jazeera waxay go'aansatay inay dacwadda dilka wariyahooda kaamiramanka ahaa Salim Abu Diqqah inay u gudbin doonaan maxkamadda dambiyada caalamiga ah. shabakada Al Jazeera war ay soo saartay waxay ku sheegtay in musawirkooda ama kaamiramankooda Samir Abu Diqqah arintiisa dil ula kaca ay ahayd oo Israa'iiliyiintu ay geysteen. waxaana u gudbinaynaa maxkamadda dambiyada caalamiga ah. waxaana hawsha noogala shaqayn doona dad hawsha u furfurcoon iyo looyaro sare oo ay telefishinka Al Jazeera qabsatay iyadoo dacwad la tiigsan doonta ciidanka Israa'iil dilka ay u geysteen wariyahooda iyo sidoo kale kiisas kale oo Al Jazeera toos ay u beegsadeen. waa tahay warbixintaas Al Jazeera soo saartay waxaan la dacwoonaynaa ay dhaheen nimankan maxkamadda dambiyadaan dacwad geysanaynaa looyaraan qabsanaynaa taliska ciidanka Israa'iil ragga madaxdu ah iyo dowladda waxa dhanaan dambiga ay naga galeen aan maartay ku dacweynaynaa. marka dacwad dadkii aba la leeyay meeqa la laayay Falastiin. hadda Al Jazeera hal qof ay ka qeylinaysaa iyo dad familiyadoodii la dilay. waxaa ku dhintay la leeyahay maxay ahaato 71 maalmood waa maanta dagaal 90 wariye iyo cameraman ayaa lagu dilay Gaza. 90 aa lagu dilay. 90 kaas waxay u wada shaqeynayeen hay-adaha warbaahinta adduunka iyo kuwa Falastiin kulli. nagtaasa lagu hay 90 la dilay. Al Jazeera marka iyada hadda
qofkii ugu horreeyay ka dhintay marka laga tago familada iyo dadka kale iyo dadka wax ka noqdeen. marka hawsha marka halkaa ka taagan hawl sahlan ma ah. marka waa arki doonaa Aljazeera iyo Israa'iil ciidankeeda halka ay kala tagaan, laakiin inkastoo aan u malaynayo waxa kan inay yihiin in adduunka loo sheego in dacwad haddii la isku qaadayo sharci la isku xukumayo maxkamadda dambiyada dacwad ay Jazeera geys. haddii de macalinka weyn iyo hawlihiisa ay soo dhex galaan maxkamadda nid wax inaysan ka shaqeynayn hawshaas waa la ogyahay. marka qodobkaas halkaasaa kaga gudbaynaa. qodob kale oo aad la yaab u lahaa aa jiray maanta. nimankan Jazeera dagaalay toosig ay la galeen markan Israa'iil. wax kasta oo dhibaato ay geysteen ayagoo awalba daba taagnaa ay maanta waxay tageen isbitaal shalay ay ka baxeen ciidamada Israa'iil. haddaba isbitaalkaas waxay ka geysteenaa leeyahay wax la yaab leh, caqligaagaa diidaya. haddaba aan idin tuso marka Aljazeera waxay leedahay waa tahay Aljazeera waxay leedahay maamulaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa wuxuu u sheegay Aljazeera in dad dhaawac ah la dulmariyay katarabiilo, waxaana xaqiijinaya shaqaalihii cisbitaalka. waxaana la sheegayaa in Aljazeera ay booqatay goobta jariimadaasu ay ka dhacday. waxaana la sheegay in ciidamada gumaysiga Israa'iil dad soo qaxay iyo dad xanuunsanaya ay ku waxyeeleeyeen gudaha cisbitaalka. waxaana la sheegay cisbitaalka la yiraahdo Kamaal Cudwaan in markaa ay dhibaatadu ka dhacday. barxadda cisbitaalka waxaa ku yaalay teendhooyin dad maaragtay xanuunsanaya ay jiifeen oo maaragtay dhaawac ahaa oo aan carari karin. katarabiilada ayaa soo galay gudaha, waxayna sameeyeen dadkii ayaa la dulmarsiiyey katarabiiladii. waxayna godad ka qodeen gudaha cisbitaalka. dadkii oo nool oo qaylinaya ayaa waxaa la sheegay in la aasay. waa arrin marka naxdin leh. waxay leedahay Jazeera marka wariyaashoodii aa tegay halkaa, dadkii raadkii dadkii halkii lagu dhibaateeyey, meelihii xoogga loogu aasay, dadkii oo qaybo ka mida jirkoodu ay soo jeedaan oo maaragtay qabuurana maahane katarabiilku inta uu dardaray ayuu haddana wuxuu raba ka sameeyey. marka meeshii waa ku galgasheen, dhulkii oo dhan way jajabiyeen, ciiddii oo dhan ay iska daba rabeen. kadibna waxay yidhaahdeen shaqadii aan ka haynay Kamaal Cudwaan cisbitaalka la yiraahdo waa ka dhamaysanay. cisbitaalkana wuxuu ku yaalaa waqooyiga magaalada Gaza. cisbitaalada yar ee farakutiriska hadda soo haray ee dadka lagu daweeyay waa kuwii kale waaba horey u baabi'iyeen. kiina marka saas waxaasay ka sameeyeen la yiri. dhibaatadaas ayaa marka dadkii cisbitaalka bukaanka ahaa loo geystay, iyagoo nool ah xataa halkaa lagu aasay ayaa la leeyahay. marka waa arrin aada u foolxun waaye. waxyaabaha qaar marka lagu sheego waad naxaysaa, waa yaabaysaa. waayahay marka sheeko kale marka galaynaa. ciidamada Israa'iil waxaa la leeyahay waxa ay deganaayeen Juhru Diig meel la yiraahdo ayaa cutub ka tirsan ciidanka deganaa. marka meel taaga waaye Juhru Diig. teendhooyin uga dhisnaa marka ciidanka Israa'iil. teendhooyinkii halkaa uga dhisnaa ayaa dhulka inta laga soo baxay bacaadkii lasoo fuulay oo kooxda Xamaas Kitaabul Qasaam ay soo koreen, ayay waxay ugu tageen teendhooyinkii nimanka waardiyaha ka qabta leeyay si ay u ilaaliyaan taangiyada iyo hubka halkan daadsan, si markaa wixii hoostan ka soo baxaya ay u arkaan oo ay markaa ula socdaan. hadda marka video waa soo dhacay, Aljazeera laga baahiyey. anigana sida caadada ahayd linkiga idiin soo dhigayaa meesha oo fariimaha ayaad ka daawanaysaa YouTube-ka qaybta fariimaha. markaa gasho marka ugu horeysaba waa helaysaa, halkaasaa ka helaysaa. marka videoga marka waxaa ka arki doontaan meeshii weerarayaan, teendhadii dhagaha laga garaacaya wixii ku jiray, askartii meydkooda la banaanka lagu soo jiidaya, wixii hub u yaala meesha, qoryihii u yaalay, wixii halkaa u yaalay kulli Al-Qasaam qaadanaysa.
marka sheekadaas waxay ahayd sheeko cusub oo hadda aada looga hadlayo. deegaanka Joxor Diiga la dhahaa, kadib taangiyadii iyo wixii oo dhan waa wareerayaan, meel laga jiray aqoon weynayaan. marka videogaas halkaas aan idiin soo dhigi doonaa haddii Allah awood leh ka raali noqdo. sheekada kale ee cajiibka ah ee barnaamijka aan ku falanqeynayno iyadana waxay noqonaysaa markii ugu horeysay Israa'iil ayaa waxaa la leeyahay waxay sheegatay nambarkii ugu badnaa maalin kaliya kaga dhaawacma Gaza. maxaa war isa soo taraya waayadan waxaan ogeyn hal dhaawacmay, laba dhimatay, hal dhaawacmay, waxaasaan aan haynay maalmahan oo dhan. laakiin hadda sheekadii waxaa moodaa inay isa soo bedeshay. barnaamijkan kii ka horeeyay 20 dhimatay. hadda maanta caawa maxay soo saareen warbixin, xataa miidiyihii alla yaaban nimankan se hadda wax u sheegayaan, sababtoo ah waa la isdaba galay. been dambe haddii la sheego waa layidhi wasiirka gaashaandhigga iyo Netanyahu iyo dadka waa idinla xisaabtamaynaa ay dheheen. bulshadii yaa kacday markii beentoodii badatay. waayahay marka ay tusoo warbixin goordhow Al Jazeera lagu daabacay, ciidamada Israa'iil waxay qirteen inay ka dhaawacmeen 35 ka tirsan ciidankooda maalin kaliya. waa la yaabay. warsii socotay Jazeera waxay leedahay ciidanka Israa'iil waxaa ka dhaawacmay 35 askari 24 saacadood ee ugu dambeeyay. 33 waxay ku dhaawacmeen dagaalka ka soconaya Gaza maartay kaligood ku dhaawacmeen. malaha labada kale dhinaca meel kale ku dhaawacmeen iyagoo caadi ah, laakiin kuwan dagaal ay ku dhaawacmeen ali dagaal foolka fool ah. waayahay warbaahinta marka Israa'iil iyaguna waxay leeyihiin dhaawacyada ay sheegayaan Israa'iil ciidankeeda waa ka badan yahay kuwa isbitaalada la geeyo. ayaga isdaba socda, Ilaahay baa isku daray. wariyaashu waxay leeyihiin waxa ay sheegteen waa beentiin. 35 wax ka jira male, waa ka badan tahay inta helicopterada lagu qaaday ka badan ay leeyihiin. marka 35 ma sii kala saarin ayaga awal saraakiil askar ay dhijin, hadda waxay yiraahdeen 35 askari kaliya ku soo koobeen. marka intaas saraakiil inta, laakiin waxa leeyahay qaar badan oo kamid ah 35 xaaladoodu aad bay halis u tahay la leeyahay. waa tahay qodobkaas marka isaguna halkaas kaga gudbaynaa. qodobka kale ee marka cajiibka ah barnaamijka ku soo qaadanayo waxay tahay nimankii Xuuti ahaa waa loo tagi waayay. macalinka weyn waa waabiyay, waa la handaday, markab dagaal la geynaa, Ingiriiska jooga meesha waa la wada tagay. wax ka jira male. maanta ugu dambeysay barnaamijka kii ka horeeyay ku sheegay markab Switzerland leedahay ee weerareen. marka nimankii marka waxaa la yiri war nimanka maxay rabaan, xaalkoodu muxuu yahay. nimankan markii ay sheekadan bilaabayeen waxay ku xireen shuruud inay shaqadan joojinayaan. maxay dhaheen? waxay yiraahdeen afayeenkooda wuxuu dhahay inta lagu hayo cunaqabataynta Gaza oo cunnada iyo dawada iyo biyaha loo diidan yahay, Israa'iil annagana waa go'doominaynaa ay dhaheen. marka shuruudaas ay ku xireen, oo shuruudaas haddii la furo ka waran oo raashin badan iyo wax ay ogolaato Israa'iil in Gaza gasho, maraakiibtan iyadana ma maraysaa meesha ma okay miya? haddii dabcan waa asaasa leh. macalinka weyn marka wuxuu dhahay shaqadaas laga qabto, shaqadaas waa in la galaa. Israa'iil waa in shaqadaas qabataa leen. waa lagu go'doomiyay badda cas meelaha ugu muhiimsan waaye, dekadaha dhan waa xarbaan. marka waa inaad dadkaas gargaarkaas aad u fasaxdid waaye. marka sheekada marka halkaas marka ka soo bilaabad markaas waxaa la yiri marka war Xuuti yaa afahmaya leer yaa loo diraa. Xuutiyiinta yaa loo diraa oo arintan kala hadlaya. Xuuti marka hal saaxiib leh qabanayay Iiraan waaye, waxa waaye awlaadoodii ku jiraan. Iiraan curadkeedii waa Xuuti. Iiraan iyo macalinka weyn iyo Israa'iil iyana la isku ma fiicna. yaa loo diraa. Sacuudi yaa loo diraa. hadii la Sacuudi iyo Xuuti hadda ay heshiiyeen nafta haysay Sacuudi.
imaaraad iyo sacuudi hadday heshiiyeen baalkii xuuti iyo waxaan iiraan la hadashay waxay tiri iska daa nimankan hadda waa heshiine sacuudiga iyo imaaraadka iyo ka dhaafo waxba taabanina leeyahay curadka waa lala hadlay sacuudi waa nastay maalmaan awal meelihiisa shidaalka nagta lagu waayo sacuudi marka asagoo hadda ka soo baxay dhibaato kale iskuma doonan karo mana loo diri karo xuuti asaga iskuma fiicna weli marka waxaa la yidhi macallinka weyn wuxuu yidhi xuuti yee kaloo macaamilaan marka la yidhaha bad ahaan xuutiga waxay isaga dhow yihiin cumaan saldanada cumaan xuutina darisay yihiin khaliijkana dowladaha khaliijkana way ku taalaa oo way ka mid tahay ururka iskaashiga khaliijka ku jirtaa dowladaha sacuudiga cumaan ay ka mid tahay marka cumaan iyo iiraanna dhib iskuma qabaan macnaha iiraan iyo cumaan iyagu weligood ma diririn midda kale cumaan iyo xuutina daris waaye weligood ma dagaalamin marka waxaa la fariinta cumaan ha qaado xuuti ha loo geeyo si hoosana baasha ha loo xalliyo yiri macallinka weyn laakiin si hoose ma jirin markiiba xuuti waa la soo boodeen warki waxay yidhaahdeen sheekadaasaa naloo keenay haddaba marka warbixinta marka waxaa qoraysaa wakaaladda wararka ee waddanka ruushka ayaa soo heshay xogti waxay soo dhigtay miidiyaha waxaa la yidhi kooxda ansaarullaahi waa xuutiyiinta wadahadallo ayaa lala furay caalami ah oo ku saabsan dhexdhexaadin waxaana wada cumaan ayaa wada arrinta ku saabsan howlgallada ay xuutigu ka wadaan badda cas marka warbixinta waa sii socotay waxaa leeyahay kooxda ansaarullaahi ee waddanka yemen maanta oo sabdi ah waxaa lala furay wadahadal ku saabsan dhinaca caalamiga ah waxaana dhexdhexaadinaya saldanada cumaan waxaana laga hadlayaa weerarada xuutigu ay ku qaadayaan maraakiibta israa'iil iyo kuwa u socda dekadaha israa'iil maalmihii ugu dambeeyay dhibaatada xun la kulmay marka waxa laga wada hadlayaa waxay tahay haddii arrintan ay yaraynayaan xuutiga oo laga jawaabo dalabkooda maxaa waaye arrinta bani aadamnimo ee marinka gaza afhayeenka xuutiga ayaa wuxuu sheegay wuxuuna kusoo qoray boggiisa x ama twitterka in walaalahood saldanada cumaan ay sheekadaa ula yimaadeen ujeedaa xuuti gacanaa loo taagay xuuti marka waxaa la yidhi cumaan ayaa la hadashay maanta waxaa la yidhi wixii aad rabteen waa la sameynaa macallinka weyn iyo xertiis hadda waa diyaar israa'iil iilaad iyo gaajaa loogu dhammaanaa laftirkooda waa la go-doomiyay aawe magaalooyin dhan oo badda cas soo saaran in dhankaas laga keeno dhibaatay ku noqotay maraakiibtii rarnayd oo halkan inay ka degta ahayd kulli waa soo wada wareeganayaan qarashka ku baxayo waayaaba waa inaa yurub ka soo wareegtid kor ka soo gashid dhibaataa marka meeshii ka dhacday marka israa'iilna wax ma ka qaadi karto macallinka weynna si kastoo u handaday nimankii waa hari waayeen marka hadda marka halkaasaa lagu dayaa marka xuuti waxay leeyihiin gaza haddii cunno iyo dawo iyo biyo ku filan loo fasaxo annaga kuwan waa fasaxaynaa laakiin galab iyo iska daba wareeg iyo hadday keento israa'iil waa naqaanaaye waxaa joojinayna mare marka hadda maanta ay bilowdeenaa leeyahy oo sabdi ah wadahadallada macallinka weynaana wata israa'iil gacmay taagtay way isdhiibtay markaan waxba lagama qaadi karo xuuti albaab yaruu taagan yahay asaga bad weyn hadday ahaan lahayd maraakiiba inta laga dhigo markabka mar la dhihi lahaa dhexdeena laakiin meesha meel la mari karaba maaha marka hawshaasaa socota wixii warara ee kusoo kordha waan idinla socodsiin doonaa qaybta ugu dambeysa barnaamijka waxaan ku eegaynaa khariidadii caawa ayaanu ku eegaynaa haddaba khariidada caawa waxaa la leeyahay waxay ugu badan tahay dhinaca juxrudiig aagga la leeyahay juxrudiig waa meesha maanta lagu helay ciidanka israa'iil oo kooxda kataa'ibul qasaam ay soo bandhigtay caawa videoga halkaas dhibaatada ay ugu geysatay marka khariidada laba qayb ka mid a ayaan idiin soo diray marka waxaa leeyahay
nimankii xamaas markii ay buurtii soo koreen taangiyadii oo yaalay juxru diig oo meesha safan sida arkaysaan meesha ay yaalaan taangiyadu waa juxru diig. juxru diigu waxay leeyihiin waa mandiqa zaraaciya dhul beereed waaye dad badan ma degana beere iyo waxaasaa ku yaala. nimankii waa soo degteen taangiyadii meel aysan iyaga filayn waa laydinkaga imaana islahayn oo difaac ay ka samaysteen kore oo teendhooyin ah u diyaarsanaa. teendhooyinkia la qararamsaday kadibna taangiyadii ayaa halkaa lagu gubay leedahay aljaziira. warbixinta marka qariidada caawa waxay leedahay halkaasaa si xun loogu baabi'iyey israa'iil taangiyo badan waa laga gubay. dabcan videogaas hadda dhow ayaa shil ku dhacay berita wixii ka dambeeya waa keeni doonaan nimankan haddii aan la idmo. marka intaanan ka bixin mar kale waxaan idin xusuusinayaa linkiga qaybta fariimaha waxaan idiin soo dhigayaa video hadda ay soo direen xamaas. videoga deegaanka la yidhaha juxru diig oo nimankii ilaalada hayay lagu cunay hubkii laga furtay taangiyadii lagu gubay halkaasaa iyadana idiin soo dhigi doonaa iyadoo barnaamijkankii ka horreeyana qaybtiisa fariimaha aad ka daawan kartaan iyana video kale oo xalay ay soo geliyeen xamaas iyagoo dagaal culus la gelaya israa'iil. barnaamijkii waa naga inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno waxaan aada ugu mahad celinayaa dadka fariimaha mar walba nagu caawiyo soo qora aragtidooda iyo fakarkooda like iyo shareka kuwa saaran way mahadsan yihiin. inta ku cusubna subscribe ha saaraan youtube-ka inta ku cusubna facebook ha follow gareeyeen. inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno haddii aan la idmo nabadgelyo.